سبحانه وتعالى مهدله مرضاتك وحان بقادرنا أقوي هندا ما أنت لما يسترتي محوها governance and leadership and management أقومتها وين تخصص حقوقاتي أدبنا بقادرين وحلنا حنبليو وعقلوا بقادرين معلمينتي iyo aqoon-yahanadii ku tabcay iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa waxaanay muujinaysaa maanta heerka ay maraysa aqoonteedu iyo kobaca ku yimid iyo gaar ahaan jaamacadda Hargeysa isbeddelka ay ku tallaabsanayso ayaan runtii ka markhaati kacaynaa sidoo kale waxaan iyagana u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhida ee madasha lagu marti qaaday انت كذب وحا محوعي لو تركل ان وقت كوبان سي كوبان قبضكي حكومه حزب الحكوميه مددي اي ترى دلكن اي هيسي marka la qiimeynayo xukuumad ama xisbi kale dalku guuleystay waxay u baahan tahay in si mug weyn loo qiimeeyo waxa laga duulaa oo saldhig u ah barnaamijkii xisbigaasi uu ummadda u bandhigay ee uu codka ku doonay ee bulshadu ku taageertay waxa la qiimeeyaa maxaa barnaamijkii ka fuliyey muxuu meel mariyey waxa kaloo la qiimeeyaa muxuu ku guuldaraystay inuu fuliyo muxuu ku fashilmay dhinaca kale waxaa la qiimeeyaa maxaa muddada carqalado iyo mashaakilo soo wajahay dowladda sidee bay uga dabaalatay mashaakilaadkii ku yimid waxaa kaloo la qiimeeyaa maxay hal abuur la timi intaa ka baxsan wixii ama ay ballan qaaday ama caqabadaha ku yimid maxay hal abuur iyo isbeddel ku tallaabsatay waxyaalahaas dadka laga doonaya inay qiimeeyaan waa aqoon-yahanadiina bulshada dhexdhexaadka ah ayaa laga rabaa inay arrimaha ka markhaati kacdo haddii aanu annagu iminka akhrino oo bugaag badan dareerino waxaa laga yaabaa in dad badani u qaataan rag faanaya ama bulshada indhaheeda indha sarcaadinaya bale waxaa laga yaabaa oo xaqiiqa ah in hadda wax badan oo aanu qabanayba laga murmayo oo la dafirsan yahayba waxaa jira oo siyaasadda Somaliland ku soo kordhay dad xaqaa'iqa dafira xaqiiqo jirta dad dafira oo sacabka saara oo ilaaweekaas ma jirto waxaa ku soo kordhay dad muxuu ahayey buuro waaweyn odhan kara halkaasi buura maaha waa bannaan iyo tug lagu daatay siyaasaddeennay ku soo kordhay waa arrimaha aynu u baahan inaynu ka bislaano wixii wanaagsan inaynu isu qirrabaynu u baahanna wixii qalloocana in la sheego weeye waxaan nahay xukuumad iyo xisbi muddo dheer mucaarad ahaa oo muxuu ahayey aan layli ahayn ama jarabarad ahayn yaqaana soo kacaakufay bisayl badan leh markaas mas'uuliyad badanina saaran tahay مسؤولية بدل ما نسافر ترى مكان معارض كاين ما كان حكومتنا هينا وحبة ما نسافرين وعلى حكومة حزب الحكومية من أحوين أحمد سلامي وقامنا يو وعلى مثل هاي هنا حقيقة سي برنامج كي حزب الحكومية بوجود السومالي الآن عامل عندكم كويت سنة وعلى مثل هاي هنا من بدل حقيقة شنو أرى إنه قبل مجهده أو من نحو الواقع يتكلم بني آدم وحول ما لما يستري كرام أرى إنه كيف بما نقولين وحساب الله هذا وحوين أيام حقيقة bulshada waxaan diyaarinahay inayna la xisaabtanto xisaabta alla ka shaqo waxaan isleeyahay 8 arrimood ilaa 9 qodob oo aan sharax badan u gelin baan isku taagayaa arrimihii muxuu ahaa xukuumadda xisbiga kulmiye
uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaan yahay xaqiijisay bini aadamku waxa laga yaabaa inuu ilaawo isbedelada dhaco inuu ilaawo ayaa dhici karta ummad inaad wax ka bedesho horumarkeeda dhaqankeeda dhaqaalaheeda siyaasadeeda waxa uu horeeyna qorshe u samayso bulshada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliland ilaa iyo waqtigii aynan magaalooyinka soo gelinay miyiga joognay waxay lahaan jirtay qorshe qoyska qorshe lahaa qofkuna qorshe lahaan jiray qoyska reer miyiga bulshada reer guraaga waa qorshe lahaan jiray ku jaanbo aan afarta xilli jiilaalka iyo xagaaga dayrta iyo guga xataa waqtigay dhalayaan ilmaha uu dhalanayo waxa lagu jaangoyn jiray waqtiyada aro iyo oo guul iyo xawawa ayaa jiri jiray xataa la iskama dhali jirin sanad walba lama dhali jirin jiilaalka iyo xagaagana lama dhali jirin qorshaa la samaysan jiray ninka reer miyiga badan uu yaqaanay xilliga uu u dhalanaya uu yaqaanay isagoo ilaahay ilaada hayo ma jirin family planning programs xataa ma jirin caqligaas waxaad garan kartaa bulsho waliba inay qorshe u baahan tahay waxaanu samaynay xisbiga kulmiye xukuumaddiisu wuxuu sameeyey markii ugu horeysay qorshe qaran oo 5 sannadood 2012 ilaa 2011 ilaa 2016 qorshe koobaya waxaynu u baahannahay oo ka kooban 9 qaybood ama 9 sektor oo raadinaya meel walba waxaynu ka qabanayna mustaqbalka ama aan ku qabsano adduunaynu leenahay ama aan ku qabsano adduunka beesha caalamka uga caawiso mashaariicda waddanka laga fuliyo ma badnaan jirin ee waaweyn relief programs baa ku badnaa laaba kaca hay'ad waliba waxay xor u ahayd meeshay doontay inay wax ka fuliso waxaanu dunida waxayna siisa ku qasabnay oo ku qancinay inay raacdo buugga qorshaha qaranka waxaan aaminsanahay in buuggaasi xukuumadaha aan diyaarinay madaxweynuhu amray runtii aan ku bogaadinayo Dr. Sacad Cali Shire oo ah wasiirka qorsheynta xilliga in uu wax weyn Soomaaliland ka bedelay waa buugga horseeday inaynu samaysano mashruuc la yahay Somaliland Development Fund oo dunidu trust fund ay meel dhigto qaybo ka mid ah dawladda oo laynagu caawiyo qorshahaas waa ku guulaysay waxa laga yaabaa in dadka qaar wax yar leeyahay waxsan naamisanahay inuu wax weyn yahay oo uu horumarka aan maanta xukuumaddan ku suufatay miftaax ah waxaan hadda wadnaa buuggii labaad qorshihii labaad NDP2 Somaliland muxuu ahaayay horumarkeeda qaybteedii labaad waxa buuggaas iyo qorshahaas inoo suurageliyey inaynu kor qaadno kaabayaasheena dhaqaale waxaa hirgalay muddadii 6 sano iyo marka ahayd wadooyin ciidda ka badan in la dhisto qayb xukuumaddu dhistay qayb bulshada iyo xukuumaddu isugu tagtay iyo qayb dadka laftiisuba dhistay waxaanu abuuray jawi diilo ummaddu wax ku qabsan karto waxaanu aynu dhisnay kaabayaasheena iska bedelay wadooyin waaweyn oo saacado badan aynu ku qaadan jiray waddada kalabayn iyo wax ka mid ah magaalada gobolka Awdal gobol muhiim ah qaliya waqti badan lagu qaadan jiray xogaga ka tilmaanta qofka boorino ku yimaada Hargeysa intuu soo socdo waxa laga yaabaa in dad badan aanay nimcada dareensanayn waxa ka mid ah kalabayn iyo wajaale inta loo maanta loo socdo iyo sidii rafku ahaan jirtay waxa ka mid ah Berbera iyo Hargeysa wadooyinkaas oo dhan waxaynu qorshaha saartay kaabayaashii wax badan baa beddelay iska bedelay waxa ka mid ah maanta madaxda caasimadda Hargeysa Cigaal International Airport oo ahaa garoon yar oo 1958 la dhisay bulshadeena xilligaa jirtayna aad garan karto maantana ka mid ah garoomada ugu fiican geeska Afrika oo compliant oo waafaqsan diyaaradaha dunidu 12 sektor ee lagu qiimeeyo ka gudbay saameyntii lagu sameeyay oo ay ka soo degi karaan oo diyaaradaha caalamiga maanta ay dhammaantood yimaadaan waxa ka mid ah arrimaha muddadii aynu xaqiijinay bulsho ahaan wax dhiirigelinta maalgashiga caalamiga
مثلا إلى الدنيا كوكب عيسى قرنا الله أوصلين وموضوعها عاطفية دقائق يسكب كوريا إن الدنيا كوكب عيسى إن أكتشف كذا عالمية وحسنا معها وقول وين وحكومتنا يسوي شيء وقول وين مدحان الولاية إن ما تذكر الشراء وقباريا أو شكله وين وعالمية الهشيس الأولى شراء أو مستحمل شراء وضمه وحسنا معها إن نقولون شركات عالمية بيبي وين لقوا برنامج وين هذا كده عالمية بربرين لا بلاريا وأي سوري في جرينا وحسنا معها يلا himilada iyo higsigaynu wadnaa waxa weeye inaynu noqono qaran marsadiisu waraabiso bariga iyo bartamaha Afrika oo dhan qaran wadadiisa berber kooridoor dhista inaynu noqono waxa ka mid ah arrimaha inoo qabsoomay arrimahaasina tacab badan iyo tashi badan iyo talo badan bay ku yimaadeen waxa ka mid ah arrimaha inoo qabsoomay inaynu kordhinay karaada iyo tayada adeegyada asaasiga ee bulshada Soomaaliland oranayno wax walba waa dhamaadeen waxaan leenahay biyaha wax badan bay iska bedelay muddada 6 sano iyo markaa xukuumadda kulmiye xisbiga kulmiye waxay dalka ugu timi 60 ceel oo la qoday tusaale yar baan soo qaadanay ilaa xilligii Ingiriiska ilaa dawladdii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahi muddadan 6 sano iyo bara 116 ceel baan dalka ka suura gelin waxaad arki kartaa 60 ceel oo hal qarni dhismay iyo 114 ceel wax dawlad ahaan dhismay iyo dawladdu uga caawisay qorshahan dhismay buu ka turjumay qorshihii ummadda waxa aan gaar u xusaya magaalada caasimadda Hargeysa oo ay ku noolyihiin milyan iyo badin ku dhow oo ah caasimadda qaranka waxa biyaha abba boqolkiiba 9,000 mitir kuyubik ayaa maanta yimaada mashruuca waxa la fuliyay 1980 ayaa dawladda Shiiro inoo deeqay 27 kii dawladda Talyaaniga ayaa ugu horeysay waad garan kartaa bulshadii ku noolayd xilliga 84 waxa lagu qiyaasay 80,000 inay ku noolayd Hargeysa boqolkiiba 30 baa cabba mashruucaas waxaanu xukuumadda Soomaaliland himiladii madaxweynaha higsigii madaxweynaha iyo himiladii xisbiga kulmiye ayay in magaalada bulshada ku nool biyaasho bulshada Soomaaliland meel bulshada ku nool waa meesha ugu badan waana caasimadeennii وشوي بالوري وحمات إلهي هدي نوم قريب المشروع سجب جو كلويه 6 مليون $1 بمشروع قريب ودريد بنوم ده دريد إسكالات يسوون دريد حتى الشغل كان وأنا تشهق آمنين وأنا تقنعين إسكما يمطر وحبا وأقوم هذا كينا دمان دريد نجح عليه مشروع ودمان اللي يوم دريد إنجليز كان شرمك سيجارة شركة كوكاكولا دمانتود ومهضمينا waxaa ku soo bixi doona dhawaan biyaha ay heli doonaan 20,000 mitir kuyubi saddex ceel oo dhawaan horehaada aynu hadda aanu ka qodnay waxaa ka cabaya saddexdaa ceel oo keliya 185,000 oo muwaadiniin ka cabaya mashruucaas wuxuu noqonayaa mashruucii ugu saameynta badnaa ee muxuu ahaa Soomaaliland ka qabsoomay wuxuu ka mid yahay waxqabadyada waaweyn ee la taaban karo xukuumadda madaxweyne Siinayo iyo xukuumadda kulmiye waxaa ka mid ah caafimaad MCH badan baa la dhisay caafimaad baa la dhisay cisbitaalada waa la dirdirgeliyey shaqaale badan baa la qoray si gaar ah waxaan isu taagayaa cisbitaalka caasimadda oo maanta lagu kordhiyay adeegyo fara badan oo ah cisbitaalka ugu weyn qarankeena oo wax walba oo lagala uusto maanta loola yimaado halka oo markii hore xoog ahaayeen cisbitaalada gaarka loo leeyahay oo haddana aan wadno inaanu sii ballaadhino cisbitaalka cusub ee maxamed sheekh baa ka mid ee dhabarka ku haya oo la dhisay lana hirgeliyey oo maanta ilaa wadnay laga sameeyay qalliinada wadnaha ee lagu caawinayna loo qaadi jiray dhalinyarada qaarada yurub loo qaadi jiray waxbarashadeena wax badan baa iska bedelay
ardaydii baa badatay macallimiin badan baanu qoray dugsiyadii baanu kordhinay dugsiyada sidoo kale 40 iskuul baa muddada aanu dhisnay oo gelin gaar ahaan gobolka Sool iyo Sanaag oo aad u hooseeyay ayaanu kor soo qaadnay adeegyada bulshada caafimaadka waxbarashada biyaha meelaha aan xoog adeegyada loo gaarsiiyo horumarka ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah arrimaha muddada la xaqiijiyay dhismaha ciidamada qaranka tayadooda tiradooda qalabkooda darajadooda xeerarkooda waxaas oo dhan maanta ciidan qaran oo suuro geliyay amniga iyo nabadgelyada ummadan inay noqoto mid waxaa ka mid ah waxyaalaha aanu xaqiijinay muddada dhismaha dowladnimada kobcinta aqoonta shaqaalaha dowladda oo waxaa ka qaran dowladda capacity building تعب بدل بالجدي وحلاقي بين ضدكو وحقرقو واحد موقع يوحنا موقع دار هواوي يكون إنجليز كبدلية وزارة عصو إلا لكن كله برشة وياها لكن لما أعرف قرار أقوى قرار وحكم إذا أقوى قرارات أمبرتين اللي كدوا جنب حكمنا وأقوى لا تعب قرار وبرت مجتمع السامي كله توجد وحكم إذا أهمها إسبدل لنا وحكم إذا عندما أمن الشمال لا ما قيبتها باريس waxay samayn karaan markii dunuubtu dhacdo dunida dunuubtu maanta waxay marayaan si technology-ga lagu sameeyo waqaad aad u halisa waxay samayn karaan nooc walba oo fingerprint inay qaadaan nooc walba dambi kasta oo dhacay ciddii geysatay hadday baxsato farihiisa ayaa la helayaa waxaa la wadaa isaguna oo hadda aan wadnaa database system ballaaran oo lagu kaydiyo ayaa hirgashay fingerprintka muwaadiniinta gaar ahaan cid kastoo dambi gashaa waxa kaloo iyadana aynu wadnaa barnaamijka DNA-ga isaguna waa isbeddelka ku yimid qaybta baaristoo keliya waxaa ka mid oo kale oo aan runtii xusi lahaa waxyaalihii muddada inoo qabsamay waxaa ka mid ah xeerar iyo shuruuc badan ayaan aaminay oo qaranka faa'iido u leh dowladnimada qayb weyn bay ka tahay shuruucda iyo xeerarka waxaanu aaminay shuruucdii ugu badnayd muddadii Somaliland jirtay ayaanu samaynay golaha wakiilada waxaan ku hambaliyaynaynaa iyo golaha guud shuruuc badan bay muddada hirgeliyeen oo ka badan muddooyinkii hore muxuu ahaayey shuruucda meel martay waxaa ka mid ah waxaanu xoojinay nabadaynta dib u heshiisiinta bulshada gaar ahaan gobollada bari xoog baanu saaray dhaqaalo badan baanu ku bixinay weli gacantaanu ku haynaa taas waxay suuro gelisay in qarankeenu uu midnimadiisu soo xoogaysato waxay suuro gelisay diiwaangelintii dalka ka dhaxday codbixiyaashu in gobolka Sool dal tusaale soo qaato 157 goobood in laga diiwaangeliyo dadku ay iska diiwaangeliyaan si nabada oo cufil lahayn oo dadku rabitaankiisa sarka ku haya wax iska yimi maaha waa wax nabad ku yimi isfaham dib u heshiisiin iyo siyaasad qoto dheer waa ku ilaalinaynaa bulshada deegaanada fahamka iyo siyaasaddii ay nala jireen waxaa ka mid ah arrimaha waaweyn ee bulshada Somaliland ka cabanaysay ee la tiicaysay ee xanuunada hayay ka mid ah garsoor xumo iyo cadaalad xumo dib habeyn baan garsoorka ku sameeyay bulshada Somaliland maanta waa ka marxaati la mushkil maxkamadu inuu yaraado in garsoorkii hagaagay waa guul weyn oo qaran ahaan ay gaarnay marka la isku soo duubo waxaan leenahay waxa aan qabanay khudbad kooban kuma goobi karno waxaanu leenahay waa wax muuqda qarankan isbeddelka iyo horumarka ku yimid waa wax muuqda waxaan ku soo warinayaa bulshada waxaanu aaminsanahay in bulshada Somaliland mahadisay hogaamintii madaxweyne Silaayo iyo himilooyinkii xisbiga kulmiye waxaanu leenahay mar labaad waxaanu soo bandhigi doonaa halkaa waxaanu ka qaadi doono oo maanta khibrad badan aanu helay taba badan iyo xirfad badan ay nagu dugan tahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.